Soomaaliya iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya oo kala shaqeeyay heshiis cusub isla markaana soo saaray warmurtiyeed. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kulan la qaadatay wakiilka cusub ee arrimaha caafimaadka hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan. Maamulka Jubbaland oo ka digay halis ka dhalan karta daadadka roobabka guga ee dalka ka curtay. Horjooga ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo xubno kale oo lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo digniin u dirtay maraakiibta iyo doomaha sida sharci darrada ah uga kalluumaysta biyaha Soomaaliya. Akhbaaraadka dibadda qodobka u door korona subaxnimadan waxa uu noqonayaa horumar la taaban karo oo laga gaaray wadahadalka Qaahira ee xabajoojinta Gaza. waxaad dhegaysateen warkii kooban iminkana waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. waa 8 bisha Abriil sanada 2024 ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan. Cabdiyar ayaa idin faahfaahinaya. aynu ku bilownay dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay kala sixideen heshiis cusub waxaana ay soo saareen warmurtiyeed. faahfaahinta warkan Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa eegaya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gabagabeeyay booqashadiisa rasmiga ah ee uu ku tagay boqortooyada Sacuudi Carabiya kadib martiqaad uu fidiyay boqorka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan labada ayaa waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayeen waxqabadyada iyo sidoo kale heshiisyada ay galeen. qodobka koowaad oo labada madaxweyne ku heshiiyeen ayaa kala ah dhaqaalaha maalgashiga iyo ganacsiga. labada dowladood ee Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya waxay adkeeyeen kobcinta iskaashiga dhaqaalaha iyo sidoo kale maalgashiga gaar ahaan beeraha, xoolaha, kheyraadka badda, dekedaha iyo sidoo kale isku socodka, iyada oo ay bogaadiyeen kororka ku yimi iskaashiga, isfahamka iyo sidoo kale ganacsiga labada dal oo sanadka 2022 ka batay boqolkiiba 105 inta uu joogay sanadkii 2021. difaaca iyo amniga. dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxay muujisay in ay garab taagan tahay howlgallada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dalka kaga xoreynayso waxa loogu yeeray argagixisada, waxaana ay ugu baaqday beesha caalamka in lagu garab istaago ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, kaasi oo ay ka soo hooyeen guulo la taaban karo. sidoo kalena Sacuudiga ayaa waxay soo dhaweeyeen qaraarkii golaha wasiirada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee cunaqabataynta hubka lagaga qaaday Soomaaliya, kaasi oo fududeynaya in dib u dhis iyo sidoo kale qalabayn lagu sameeyo ciidamada Soomaaliya, madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya. boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa ay cadeysay sida ay ugu garab taagan tahay midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo tilmaamtay gefka dhinacyada dhibaatada heshiiska sharci darrada ah ee Ethiopia ila saxiixatay maamulka Somaliland, kaasi oo caqabad ku ah diris wanaagga iyo sidoo kale xasiloonida gobolka. tamarta, shidaalka, isbeddelka cimilada. labada dowladood ee Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya waxa ay isla qaateen in ay ka shaqeeyaan iskaashiga dhow iyo sidoo kale iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku ammaantay boqortooyada Sacuudi Carabiya doorka hogaamineed oo ay ka qaadanayso isku dheelitirka suuqyada caalamiga ah ee shidaalka iyo heshiisyada ku aadan bariga dhexe, gaar ahaan kaasi oo lagu wajahayo saameynta isbeddelka cimilada. qodobka shanaad, boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa ay bogaadisay horumarinada dowladdu ay ku tallaabsatay, gaar ahaan deyn cafinta ku timid hufnaanta maaliyadeed iyo sidoo kale dib u habeynta dhaqaale oo ay sameysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana ay boqortooyada Sacuudi Carabiya muujisay muhiimadda cafinta deynta, taasi oo hoosta ka xariiqaysa in lagu kalsoonaado laamaha lagana fogaado hay-adaha maaliyadda Soomaaliya in ay isku filnaan karaan. labada dowladood ee Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya waxay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ku aadan arrimaha tamarta, korontada, sidaas dakhliyada iyo sidoo kale iyo dawada beeraha, duulimaadyada tooska ah, taasi oo istaraatiijiyad u ah
iskaashiga iyo sidoo kale tiknoolajiyadda waxbarashada iyo ciyaaraha guud ahaan arrimaha ammaanka ee bulshada. aad buu umahadsan yahay cabdiraxmaan macalin muuse oo faahfaahinta warkaana la socodsiinayay. dhinaca kalena maamulka puntland ayaa waxa ay amar kusoo saareen in aan lagu qaban karin arrimaha la xiriira kulamada dowladda federaalk soomaaliya lagu taageeray deegaanada puntland. sidoo kalena waxay war kasoo saareen wasaaradda arrimaha gudaha oo loo magacaabay xubin kasoo jeeda deegaanada puntland. cabdimajiid cabdiraxmaan ayaa warkan faahfaahinaya. gudoomiyaha gobolka nugaal ee maamulka puntland cabdiraxmaan xaaji abshir ayaa sheegay in qofkii taageero u muujiya wasiirka cusub ee arrimaha gudaha soomaaliya wasiir cali yuusuf xoosh inuu noqonayo dambiile. waxa uu kaloo sheegay in aan la taageeri karin dowladda federaalka soomaaliya uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud. sidoo kale gudoomiyaha ayaa mamnuucay in magaalada garowe lagu qabto shirar lagu taageerayo dowladda federaalka soomaaliya, taas oo maamulka puntland uu tallaabo ka qaadayo. tallaabadan ayaana waxay kusoo beegmantay xilli wasiir xoosh uu kasoo jeedo deegaanada puntland uu qorsheynayo in xalfad lagu taageerayo isaga lagu qabto garowe, waxaana arrintaas laga cabsi qabaa inay xiisad cusub ay ka dhaliso puntland. sidoo kale waxa uu sheegay in dowlad goboleedka puntland ay xiriirka u jartay dowladda federaalka soomaaliya kadib markii baarlamaanka ay wax ka bedeleen ama ay ansixiyeen dastuurka dalka. shaqatoona kuleeyahay xasan sheekh iyo wuxuu wato wasiirka la magacaabay shaqo shaqatoona kuleeyahay gobolka nugaal baan u sheegaynaa reer puntland baan u sheegaynaa anaga lama magacaabin shaqada kuleeyahay xasan sheekhna wax nooma magacaabin oo waa kala xiriir furan xasan sheekh soo tasoo ku dhaxay anaga madaxweyne nooma naga qaban waayo madaxweyne ku soo maahay wuxuu loo magacaabayaan waxba nooma aha anaga hadda inii sheegaynaa cali isfaal xoos waa nin adeerkay weeye gobolka nugaal oo u dhashay qalalaasa iyo buuq puntland way soo martay xilligii doorashada la isku haystay madaxweynaha hadday soo marteen wixii ugu badnaa wax ka waday wuxuu ahaa xasan sheekh hadduu wax ka wadana waa u suurtageli weyday puntland dhexdeeda inuu ka kalluumaysto ama gobolka nugaal dhexdiisa inuu ka kalluumaysto xasan sheekh iyo in allaale intii puntland lidka ku ahayd waa u suurtageli weyday. hadday u suurtageli weyday maanta tartan la galay oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiye baarlamaan la doortay oo hay-adihii dowladdu dhisan yihiin wasiirada iyo dhammaan la wada magacaabay shaksi iyo laba ay soo halgaadaan ka yeeli mayno waxaan u sheegaynaa bulshada garowe degan iyo reer puntlandba xasan sheekh iyo wuxuu wata shaqo kuma lihin dowladda saraar waa inii sheegtay anigoo guddiga nabadgelyada gobolka nugaalana waa inii sheegayaa gobolka nugaal gaar ahaan waxaynu soo barray isla ogsoonahay jiitankii waynu isla ogsoonahay tii hore haddii ay nimanka u hirgeli weyday hadda waxay la tahay waynu caqliyeysan waxa la yidhi qofka muuminka abeesa god laba goor kama wada qaninto waxa la laale wixii gobolka nugaal ka dhacayay xasan sheekh waa sabab iyo tiimkiisa baa sabab u ahaa dadkii dhintay dadkii barakacay ummaddii oo dhan iyagaa sabab u ahayd iyagaa ka shaqaynaya iyagaa fan ku bixinay. ciidanka kumaandooska darab ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo haanta wadaag ee gobolka shabeellada hoose kaasoo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab. howlgalkan ayaa la sheegay in lagu dilay 4 xubnood oo isugu jira horjoogayaal ama horjoogo magaciisa lagu sheegay subeer oo ahaa madaxii amniga gobolkaasi shabeellada hoose al-shabaab u qaabilsanaa. warqolaal oo kasoo baxay dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in ciidanka darab ay sidoo kale howlgalka ay ku burburiyeen fariisimihii kooxda ay ku lahaayeen deegaanka hanti wadaag ee gobolka shabeellada hoose. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay ama la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada lagu burburinayo kooxaha al-shabaab ee fadhigoodu yahay shabeellada hoose. ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn u kordhiyay maalmihii lasoo dhaafay howlgallada qorshaysan oo ay ka fulinayaan goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab kaasi oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladda federaalk soomaaliya sida lagu yiri qoraal kasoo baxay dowladda. wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka jubbaland ayaa soo saartay digniino ku aadan cabsi laga qabo inay dhibaatooyin ka dhashaan roobabka guga ee ka curtay qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi. agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa faray shacabka ku nool deegaanada jubbaland inay ka fooljignaadaan halista ka dhalan karta daadadka roobabka guga. waxaan u sheegaynaa ayuu yidhi dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland inay u diyaargaroobaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara daadadka iyo fatahaado ka dhalan kara marka roobabka guga la filanayo in ay yihiin kuwa aada u xoogan maadaama sida uu tilmaamay
roobabka guga iminka ay ka bilowdeen qeybo ka tirsan Soomaaliya. Wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Soomaaliya iyo hay-adda Sodma ayaa si wadajir u soo saaray bayaan ku aadan inay kordheen roobabka la filan karo Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay digniin u dirtay maraakiibta iyo doomaha sida sharci darrada uga kalluumaysta biyaha Soomaaliya. Yaasiin Cali Axmed ayaa faahfaahinaya. wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya digniin ayay u dirtay dhammaan maraakiibta iyo sidoo kale shirkadaha kalluumeysiga biyaha Soomaaliya. Digniintan ayaa waxa ay markaasi ku qotontaa u hoggaansanaanta sharciga maareynta iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliyeed gaar ahaan qodobka 31aad ee markaasi qeexaya habka kalluumeysiga ee la ogol yahay. Waxaa loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada ay digniintan ku socoto in ay qaataan mas'uuliyadooda si loo ilaaliyo kheyraadka baddeena isla markaana si wax markaasi ku oolnimo leh looga faa'iideysto kheyraadka biyaha ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Kala socotaan oo idaacadda Hiiraaweyn FM 9 megahertz akhbaraadka dibadda qodobka u door korona subaxnimadan waxa uu noqonayaa wadahadallada Qaahira ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas si loo gaaro xabad joojin iyo heshiis la haystayaal lagu kala gaaray ayaa waxaa lagu soo warramaya in la gaaray horumar la taaban karo iyo is-afgarad laga gaaray dhowr qodob oo isku khilaafsanaa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Masar ee lagu magacaabo Al Qaahira News iyadoo soo xiganaysay sarkaal sare oo ka tirsan waddanka Masar. Sarkaalka waxa uu xaqiijiyay in ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu gaaro nabad magaalada Gaza. Wareegga wadaxaajoodka Qaahira waxa uu marag u yahay horumar weyn oo laga sameeyay soo dhawaasho fikradaha kala qabay ay tiri warbaahinta Al Qaahira oo soo xiganaysay la wareedyo kulankaasi ka agdhow. Xogtu waxa ay sheegtay in wufuudda Qatar iyo sidoo kale Xamaas ay ka bixi doonaan Qaahira isla markaana ay ku laaban doonaan 2 maalmood gudahood si ay u soo heshiiyaan qodobada ugu dambeeya heshiiska. Wufuudda Mareykanka iyo Israa'iil ayaa ka bixi doona saacado gudahood iyagoona sidoo kale wada tashi 48 saac ee soo socdo ay yeelan doonaan sida ay warbaahintu ay u xaqiijiyeen Al Qaahira News. Xamaas ayaa sheegtay Axaddii inay jeclaan lahayd inay aragto joojinta galdarrada oo dhammaystiran. Kooxda ayaa sidoo kale ku celisay dabaaldegeeda ay ku jiraan ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza ku noqoshada Falastiiniyiinta ka barakacay guryahooda, dib u dhiska burburka Gaza ee militariga Israa'iil iyo dhammaystirka heshiiska is-afgaradka ee dhinaca maxaabiista la kala qabsaday. Israa'iil ayaa marar badan ku tilmaamtay dalabaadka Xamaas mid aanan dheelitirnayn, laakiin ugu dambeyn waxaa lagu soo warramayaa in heshiiskaasi uu yahay mid la isku soo dhawaasho badan abuuray.